luminta qofka shaqadiisa ama ila nololeedkiisa waxaa soo wajaho caqabado badan. La tacaalida biilasha isdaba joogga ah ayaa ugu weyn caqabadaha soo wajaha. haye la kulan Justin waa qof dadaal badan oo jecel shaqadiisa, laakiin wax walba way isbedeleen markii uu dilaacay fayruuska COVID-19. Shaqadii wuu waayay, dib dambena uma soo laabanayso. La tacaalida biilasha iyo kirada bilo badan, nolosha weli sidaan uma adkaan. Hordhaca mashruuca dheelitiran eber. Mashruuca Zero Balance Project wuxuu caawimaad u fidiyaa kiraystayaasha aan kirada awoodin inay bixiyaan, kuwaas oo ay saamaysay cudurka COVID-19. dhammaan geyiga Dakota, Hennepin, Ramsey counties, including Minneapolis and St. Paul. waa barnaamij caawimaad ah oo ka imaada xagga dawladda, kaas oo u oggolaanaya mulkiilayaasha inay codsi dhiibtaan ayagoo u hadlaaya kiraystayaashooda. waxaa kaliya oo lagaaga baahan yahay inaad online gashid oo aad online ku dhamaystirtid codsiga online-ka ah. waa inaad u qalantaa caawimaadaas oo aad keentaa dhammaan dukumeentiyada laga rabo. tani waxay si qaas ah u qusaysaa mulkiilayaasha, laakiin kiraystayaashana waa in ay dhankooda buuxiyaan. sidaas ayay u fududahay buuq la'aan, dib u dhac la'aan. marka haddii ay ahayd kirada oo la bixin iyo biilasha kale oo ay ku jirto kiraysi, caawimaada ka imaada mashruuca Zero Balance Project, Justin iyo kuwa la midka ah oo deynta lagu lahaa sida isaga oo kale waxay ka badbaadi karaan xasilooni darro iyo guri la'aan. dhaqso hadda oo booqo www.housinglink.org/Zero Balance Project si aad wax badan uga ogaato una codsato. codsigu wuxuu ku eg yahay 20 Juun 2021. khaasatan degmada Dakota County, mulkiilayaasha iyo kiraystayaasha u baahan caawimaad dheeraad ah hala soo xiriiraan hay'adda 360 Communities 651-322-5113. fadlan weydii Natalie ama Kelly ama Restoration for All Inc. 651-278-1718. fadlan weydii Olua Tomani Ola. taageerada adeega AG Consulting and Media waxaa ugu deeqay degmada Dakota County iyo Pollard Family Foundation.